يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما وبعد وعين قال يا شهر الفضيل بشي فضل بدنايد رمضان إلهي وحين كبرينا ميلا نشوغنا وين من أقبله بشهر رمضان wax badan baa laga hadli karaa cilmigeeda laakiin dhowr iyo 10 daqiiqo soo socda insha Allah waxaynu ka hadli doonaa afar arrimood inta waqtigu noo saabaxo midda ugu horeysa waa bishan xukunkeeda ama miisaanka iyo mansilada ay bisha Ramadaan iyo soomkeedu ku leeyahay islaamka dhexdiisa يا مدة لبعض فضلجيسا مدة الصدحات عبادة وحيد أوعي كرا ما تشبين كرا يا مدة أفراد وحيابها ينوب بنابش الدحدة أما عندي بالهين السمايو ضد كنا لقى يابين كشكيان بيش الحكم كذا مركز لاغو وحيته واجب ويصير أفطو وحيته فرض ويصير أفطو وحي نقطة أركان الإسلام كي أركان الإسلام كثيرك والإسلام كتاعين يهوي إلهي بأوحي في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تذكي الشهادة يي إلهي رميبو ربي يروح روح على إذن كواجبية كتب وإريادة المامية حكم كواجب كأه فرل كأه بشهر رمضان صوم كذا ليدكوا واجبية سيدي ومديه ربا ليدكوا لوجو واجبية واحد يكون عصبها واحد لقيها لينا إلها وشجوا الله كعبس يتقوى النبي صلى الله عليه وسلم حديث لو ربك جهل لبيشن حكم كذا بيسان كلا هذا هي وفرضي هاي لقى ما 4 ايتين للصومه وحعطيني حديث كي بخاري مسلم كسرنا من حديث ضلحة بن عبيد الله وحا أصحابي nin baa nabiga u yimi sallallahu alayhi wasallam ninkaas su'aalo dhowr nabiga weydiiyay waxa kamid ahaa soom muxuu ilaahay ugu leeyahay aniga waxaad ii sheegtaa soomka inta faralka ah marka nabigu wuxuu ugu jawaabay shahru ramadaan bisha ramadaan baa kugu waajiba illa an tatadawwa shay'an inaad sunna la timaado mooyaan ramadaan wixii ka soo haray waa sunne marka sidii buu ninkii ku tagay marka xadiidkaasi wuxuu nabigu ku cadeeyay bisha ramadaan soomkeedu inuu yahay soom faral ah laaninka nabiga wuxuu weydiiyay soomka faralka ah daliilka saddexaad xukunkiisa cadeynaya waxa weey xadiidkii ibn umar uu warinaya caanka ahaa bukhari muslim ku sugnaa buniya al-islaamu ala khams islaamka waxa lagu dul dhisay oo uu ku taagan yahay 5 tiirarkiisa arkaan islaamka ah waxa kamid ahaa soom ramadaan bisha ramadaan soomkeeda tawxiidka salaada sakada soomka xajka marka soom ramadaan min arkaan al-islaam tiirarka islaamku ku taagan yahay weeye waxa kale oo isaguna shanaad oo daliilka ama afraad asi cadeynaya uu noqonaya xadiidkii caanka ah isla xadiisu jibriil al-muttafaq alayhi bukhari muslim ku sugnaa malakul jibriil baa yimi rasuulka sallallahu alayhi wasallam wa asxaabtiisii la fadhiya marka tilmaamo iyo tacliimaad buu siiyay sidoo nabigu markii dambe lahaa waa malakul jibriil oo idin yimi isagoo diintiina idin baraya arkaan islaamkii buu nabiga weydiiyay uu ka jawaabay arkaan iimaankii buu ka jawaabay iyo ihsaankii iyo samafalkii buu ka jawaabay waxaynu uga soconaa arkaan islaamkii ayaa xadiidkaasi uu ku daray soomka bisha ramadaan marka daliilada quraan iyo xadiis bale waxay noo sheegayaan qofka cibaadada iyada ka taga isagoo oo u kasaya isaga oo wax cudur daar lahayn qofkii muslim yahay inaanu islaamkii waxba u reebin oo isku day inuu gunta ka jaro bishana waxay leedahay fadli amar soomka ramadaan fadli buu leeyahay sida uu xusaya xadiidka saxiixa min xadiisi abi bakr radiyallahu anhu nabigu wuxuu shahraan la yanqusan shahra eid ramadaan wa dhul hijja laba bilood ma nuqsaamaan نقصان كمتي بعضه ولبضع بلاد العيد عيد رمضان يعيد بشهر الحجة لما معنى علماء كفر السيرانو
ajrigoodu aad buu u dhammaystiran yahay oo qofka bisha ramadaan sooma ajrigiisu u dhammaystiran yahay bisha carafa la yidhaha ama dulxijo qofka xajkii la yimi ajrigiisu waa dhammaystiran yahay ilaa laba tirarkii islaamkaabaa ku jira labada bilood waxaa kaloo lagu fasiray labadaa bilood mar qura ma wada naaqusaan oo tooman ma wada noqdaan oo haddii bil ka mid ah ay dhimanto bisha ku xigtaa dhammaystirmaysa hadday ramadaan dhimanto waa in bishaa kale dulxija iyadu dhammaystirantaa haddii dulxija naaqis tahayna ramadaan baa dhammaystirmaysa tafsiirkaana waa la saaray waxaa ka mid a xadiidka fadliga bishan sheegaya bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan xadiidka caanka ee marar badan maqasheen min xadiidi abi hurayra nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu u bushaarayn jiray ummadda waxa khayrka ah ee ugu soo kordhay buu ugu bushaarayn jiray wuxuu odhan jiray ramadaan baa idin yimi oo bishii barakaysnayda soomkiisu ilaahay waajibiyey albaabadii jannada la furayaa kuwii naartana waa la xidhayaa shayaadiintiina waa la xidhayaa macnaheedu waxa weeye fadligu inoogu bushaaraynayaa bishani ay leedahay marka qofka intaasi isugu hagaageen ee albaabadii khayrkuna u furan yihiin albaabadii sharkuna ay ka xidhmeen waa nacasnima hadduu jaaniskiiyo fursadda ka ilaahay ajrikiisaya salaadood labada ramadaan inta ka dhexdhexaysa ayaa ilaahay uu ka reebaa qofkan wixii ku rarnaaya dembi ahaa qofka laakiin isagu soomi waaye salaadi waaye wixiisu way ku rarnaanayaan dembigiisii wuu isfuulayaa waa mutaraakib aakhire isagoo buuraleeg buu la soo xaadiraya fadliga bisha waxaa ka mid a in habeen cibaadadan qaaliga wuxuu cuno iyo wuxuu cabo waxaa la mida dawadii kiniin iyo tusharoobaa mid kasta ahaatee wixii qofkaasi uu afka ka qaadanayo waa ka burinayaa soomkii waxaa ka jebinaya isaga oo iska hunqaaciya sidan intaba nusuus iyo axaadiid baa wada xusaysa qur-aan iyo xadiidba marka hadduu qofkii iska hunqaaciyo ogaan soomkii waa ka jabaya haddii laakiin hunqaacadu ay daralla uga timaado oo isaga awooddiisa iyadoo ka baxsan ma ka jabayo soomkii afkunbuu iska maydhaya wasakh waxaa ka mid a idkhaalu lmaai fi lanf biyihii sanka iskaga shuba nebigu sala allahu calayhi wasalam asxaabiga markuu tilmaamaya waxau le wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'ima markaad had iyo jeer sandaarsanayso eed weysaysanayso biyaha kor u yaro geli sanka si wasakhda gudaha usoo maydhaa xagga sare gaadhaan inay soomkii jebinayaan galmadii baa ka jebinaysa ninkii afadii oo sooman haddii ay galmo sameeyaan soomkii waa ka jabayaa axaadiidta saxiixa siday tilmaamayso istimnaagii baa jebinaya biyii taranka qofku iska keeno rag iyo dumar mid kasta ahaado dhiiggii dhalmada iyo kii caadada labaduba way jebinayaan qof hadduu diinta caayo ilaahay caayo rasuulka caayo cibaadadiisii waa maalintaa way jabtay inta u hadhayna wuu iska afaysanaya xalaal umaha inuu wax cuno waanu soo qallaynayaa ilaahayna wuu toobad keenayaa inuu iska cuno uma hadhin waxaan ahayn inuu darsado ama uu lumiyey waa adigoo salaaddii ku jiro inaa iskaga bax way kaa burtay marka arrinta niyaduna waa inkasta oo sida raajixa ay tahay toobinka iyo dhiigga la yska qaadaya ka feedeeyo dhaqsiaan u dareerin doonaa iyada oo qaarkood daliiladooda aynu ka soo gaabsanayno waxaa ka mid a waagoo qofka u baryo isagoo jinaabo leh hadduu qofka isagoo jinaabo leh waagu u baryo markuu salaada subax usii socdo waxaa ka mid a inuu qofku maalintii maydhan karo siduu nebiguba sala allahu calayhi wasalam jinaabada uu isticmaalayay laakiin aan cunnada ahayn iyo guluukos iyo waxa ahayn dhiigga yare la iska qaadaya waxba ma yeelayo askiisii ou yaro dhunkadaa waxba ka jebin mayso kol haddaanu wax ka weyn samaynin waxaan waxba ka yeelaynin inuu cunnadii iska cuni karo ilaa waagu dilaacayo marar badan baad eegtaa dhinacii waagu ka baryay waxba waad arki waayeysa markaa kol haddii wax ku caddi aanu jirin ila ilaahay wuxuu uhi xataa yatabayana ilaa waagu caddaado marka ilaa intaad arkaysa inuu caddaaday inta ka horeysa xalaal bay kuu tahay waxaa ka mid a qofkii inuu cadar marsan karo indha kuulan karo gelinka hore iyo gelinka dambeba sida raajixay waxa weye madhabta shaaficiyada labada gelinba subadka sheekhaa siduu ku sheegay
waxa uu leeyahay madhabta shaaficiyada laftigeeda waxa mukhtaar ah oo la doortay labada gelinba inuu qofkii cadayan karo waxa kamida luqluqashadii iyo sandaarisigii way inaad sankii hore u geliso saa in horeba u soo sheegnay kana soomku in sha Allah ta'ala kalaamkeenu ku koobna 10 iyo cadba waa la yareeystaa